بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكي برنا ويدين تنأه what are hawkish and dovish. أنت أنا نقيحين أن فهمنا أرياضا محي أتاجيهين إيو جورما أي صائف بحين أرياضا وحي أتاجيهين حب رقم نظا لبش برود وحين صائف بحين كن سجال بقول إيه لحد ميدي markii uu socday dagaalkii Mareykanka iyo Vietnam. Ereygaas haddaanan qaldaneyn Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa gorgor, waana sawirka kor idinkaga muuqda ee dhinaca midigta ah. Dove waa shimbirta qoolleyda ah, waana sawirka hoose. Oo haddaad fiirisaan shimbirka kore waa ugaarsade, waana nolol adeeg ku salaysan. Haddaba marka la rabo in la dhaho waa in bangiga dhexe ay hirgeliyaan nidaam maaliyadeed oo adag si looga fogaado sicir bararka loona gaaro xasilooni dhaqaale ayaa waxaa la adeegsadaa ereyga hawkish. Micnaha monetary policy, inflation, interest rate. Fadlan ka dhegeyso lifaaqyada hoose oo aan hadda kor uga soo hadalnay. Markana aan isla fahanno ereyga labaad midkaas oo liddi ku ah ama cagsi ku ah midkii hore. Haddaba ereyga dovish ama qoolleyda waxaa la adeegsadaa marka la rabo dabacsanaan ama in hoos loo dhigo dulsaarka si dhaqaalaha loo kobciyo loona gaaro shaqaalaysiin fiican. Gunaanad ereydan hawkish iyo dovish waxay u taagan yihiin xaalad go'aan qaadasho. Ogowna ereygan xitaa waxaa loo adeegsadaa siyaasadda arrimaha dibadda. Balse annaga waxaa naga quseeya qaybta dhaqaalaha iyo maaliyadda. Oo haddii la rabo in xaaladda la adkeeyo waa hawkish, haddii la rabo in la sahlo waa dovish. Mahadsanediin waa inoo markale haddii rabbi idmo.